waxaad ii sheegtaa nebiga ugu horeeya ee ka soo baxaya qabrigiisa maalinka qiyaamo. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xitaa uu arkayo asagoo carshuraxmaanka haysta. su-aasha jawaabteeda intaanan kuu sheegin qisadan ila dhegayso si aad ii fahantid. maalin maalmaha ka mid ah waqtigii nebigeenna maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa dhacday nin yahuudi ah ayaa wuxuu dhex joogay suuqa asagoo iibinaya xoogaaga yarkaa ganacsigiisa ah. kadibna dhankiisa waxaa soo aaday nin muslin ah oo reer ansaarta ka mid ah, reer madiina. markaas ayuu u yimid si uu uga iibsado waxa uu iibinayo. kadibna wuxuu yidhi, shaygaas imisaad iga siinaysaa? yahuudigii ayaa wuxuu yidhi, intaas waan kaa siinaya. muslimkii wuxuu yidhi, aad bay u badan tahay, iga yaree. yahuudigii wuxuu yidhi, may, meeshaas kama yaraynayo, intaasay aan kaa siinaya. muslimkii ayaa wuxuu yidhi, anna ma awoodo intaasee iga yare. markii dambe yahuudigii ayaa ninkii muslimka ahaa ku yidhi, adigu qiimo sheego si aan kaaga sii. markaasaa muslimkii qiime aad u jaban ayuu sheegtay oo ka yar intii la siinayey. intuu codkiisii kor u qaaday ayuu dhaaranayaa. markaasuu yidhi, ilaaha ka doortay nebi muuse basharka kale oo dhan. codkiisoo kor intuu u qaaday markaasaa waxaa maqlay nin muslin ah oo ansaari ah. kadibna wuu xanaaqay. intuu dhankiisa soo aaday ayuu dharbaaxo wejiga kaga dhuftay. wuxuu yidhi ninkii yahuudiga ahaa, maxaad dharbaaxda igu dhufanaysaa? markaasuu yidhi, nebi maxamed oo nool miyaad nebi kale ku dhaaranaysaa? markaasuu yidhi, anigu kulama dagaalamaye nebiix buu yidhi, nebi maxamedba noogee, asagaana kala saaraya. markiibay dhowr meesha taagnaa markhaati ahaan uga kaxaysteen. nebi maxamed dhankiisay aadeen si ay ugu kala baxaan. nebi maxamed markii loo tagay ayaa waxaa hadlay ninkii yahuudiga ahaa. markaasuu yidhi, yaa abalqaasim, qaasim aabbihiisow, ninkan dharbaaxo igu dhuftay. sababtuu igu dhufta weydii. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey su-aashan. wuxuu yidhi, maxaad dharbaaxada ugu dhufatay? ninkii muslimka ahaa ayaa wuxuu yidhi, nebiyow, ninkan wuxuu ku dhaartay ilaaha ka doortay nebi muuse basharka kale oo dhan. adoo jooga ayuu ku dhaaranayaa ilaahii ka doortay nebi muuse basharka kale. anna waan u qaadan waayey, kadibna dharbaaxaan ku dhuftay. markaasaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mar walba uu xanaaqo wejigiisa kamay muuqan jirin. laakiin maanta nebigeenna maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ay wejigiisu ka muuqato caro aad u daran ayaa ninkii ansaariga ahaa ku soo jeesanaya. markaas ayuu dhahayaa, laa tufadiluu bayna anbiyaa'i illaah fainahu yunfakhu fi الsuur fayascaqu man fi الsamaawaati waman fi اlard ilaa man shaaa allah ثuma yunfakhu fiihi أkhraa faakunu أwala man bucith faidaa muusa calayhi الsalaam aakhidun bilcarsh, yacni mucallaqun bilcarsh. nebigoo caraysan ayaa wuxuu ku soo jeesanayaa ninkii ansaariga ahaa. markaas ayuu ku dhahayaa, waxba ha kala saraysiinina nebiyada ilaahay, sababtoo ah maalinka qiyaame marka la afuufo buunka ayaa waxaa soo baxaya wax walboo samada iyo dhulka ku jira. marka ay soo baxaan intuu ilaahay ugu talagalay ma ahane. kadibna mar labaad ayaa la afuufayaa haddana. kadibna waxaan noqonayaa qofka ugu horeeya ee soo baxay. markaan saa u soo baxo waxaan arkayaa nebi muuse oo carshiraxmaanka haysta. haddaba nebigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, ma garanayo waxaa la xisaabiyey maalinkii uu suuxay uu dalbanayay inuu arko ilaahay subxaanahu watacaala. maalinkaas ayuu suuxay. inaad xasuusataan ayaan jecla. maalinkaas in la xisaabiyey ma sheegi karo, laakiin asagoo carshiraxmaanka haysta ayaa nebi maxamed ugu soo baxaya. nebigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, haddaan ku xusuusiyo mar labaad, waxba ha kala saraysiinina nebiyada ilaahay kulligooda waxaan leenahay calayhim asalaatu wassalaam